السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبضي داوديال meel kastaad joogtaanba waa barnaamijyadeennii ka bixi jiray kanaalka dhaqanka oo soo tabiya barnaamijyo ku saabsan hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. barnaamijkeenu saaka waxa uu daaran yahay xayawaanka loo yaqaano diinka ee geyiga Soomaalida sida weyn looga helo. xayawaankan loo yaqaano diinku waa xayawaan leh dabeecado ka duwan xayawaanada geyiga Soomaalida laga helo. diinku waxa uu leeyahay qolof adag oo gebi ahaanba ku dahaaran jirkiisa marka laga reebo afarta adin iyo madaxa. mararka qaar waxaa dhacda inuu xiraysto afarta adin iyo madaxaba waana xilliyada uu ka soo horbaxo cadowga ama cid uu arkayo inay dhibaato u geysan karto. qoloftan adag waa difaaciisa koowaad ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyay si uu isaga difaaco wax kasta oo dhib soo gaarsiin kara sida xayawaanada ugaarsanaya, isbeddelka cimilada sida qorraxda aadka u kulul iyo qabobaha xilliyada jiilaalka. xayawaankan hoygiisu waa inuu naftiisa ku baakin gareeyo geed hoostii isla markaana dib u xiraysto afarta adin iyo luqunta oo ah meelaha cadowgu wax ka soo gaarsiin karo. xayawaankan waxa uu quutaa cawska qoyan iyo geedka loo yaqaano carmada oo ah geed jilicsan oo dhulka dixda sida xabxabka oo kale, waxaanu baxaa xilliyada barwaaqada. diinku waxa uu kaga duwan yahay xayawaanada kale, waxa uu daaqaa xilliyada barwaaqada oo keliya, waxaana Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyay inuu kantarooli karo dheefshiidkiisa oo isku fillaysiin kara cawskii uu cunay gugii hore ama carmadii uu cunay gugii hore, waayo isagu ma cuno cawska qalalay. waqtiyada adag ee Soomaalidu xoolahooda hayaaminayaan si ay baad iyo biyo ula raadiyaan, isagu waxa uu ku baakin garaysan yahay geed hoostii, waanu ka hurdaa waqtiyadaasi adag. waqtiyadaasi isagu waxa uu isku fillaysiinayaa biyo iyo baad wixii calooshiisa u soo qaaday waqtigii lagu jiray barwaaqada. umana baahna inuu hayaamo oo uu galo safar dheer, waayo waxa uu ogyahay inaanu helayn caws qoyan iyo barwaaqadii hore uu soo daaqay cawskeedii. taas ayaana ku kaliifaysaa inuu ka indhaqarsado waqtiyadaasi adag. daawadayaal, intaasi waxaa inoogu dhan barnaamijkeennii ku saabsanaa diinka iyo dabeecadihiisa. intaynu ku kulmayno barnaamij noocan oo kale ah waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. fadlan haddii aad ka heshay kanaalka barnaamijyada uu soo gudbiyo nagu soo biir oo subscribe dheh, beelkana furo si aad u hesho barnaamij kasta oo aanu soo gelino kanaalka dhaqanka.